waxaan rabnaa in qaliinna lagu sameeyo waayo waxaan jeclaan lahayn inaan si fudud ugu gaafureegno wadooyinka oo aan sidoo kale samayno waxa aan hadda awoodi karin inaan qabsanno. ma doonaysaan inaad aragtaan sawiradii la idinka qaaday idinka oo yaryar, timaha dhan waa la idinka xiiri jiray waqtigaas. Joy iyo Joyce waxay isaga dhagan yihiin madaxa, waana mataano aan ku soo kala harin dhalmada. 13 jirada Joy iyo Joyce waa mataanaha la yiraahdo craniopagus oo ka dhigan kuwa ku dhashay iyaga oo lafaha madaxa isaga dhagan. madaxyadan iskula jirnaa mana naqaan haddii weligeen nala kala reebi doono. dhakhaatiirta ayaa isku dayay inay kala soocaan labada madax, laakiin waxaa ka soo soko martay halisyo muuqda oo caafimaadkooda waxyeeli kara iyo in dabcan qarashka adag ee gaaraya $75,000. ma taqaanin sawirka waa annaga. markaan fiiriyo sawirada mataanahayga waxay isoo xusuusiyaan waagii ay aadka u yaryaraayeen oo ay ugu adkayd barbaarintooda, oo sida maanta oo kale aysan isku filnaan karin. hadda iyagaa qubaysan kara, waxna wada cuni kara, waxayna isticmaalaan TikTok. markii ay mataanaha dhasheen war wanaagsan loogama sheegin hooyadood samatabaxooda. dhakhaatiirtu waxay ugu dhaheen 10 sano oo keliya ayay noolaan doonaan, laakiin hadda waa 13 jiro qaangaaro ku dhow. waxaan ku faraxsanahay inay dhaafeen da'dii loo asteeyey oo ay beenowday mala awaalkii dhakhaatiirta. maxaad jeclaan lahaydeen carruurteeda inaad afka ku sii macaansataan? bankeeg haye waan idiin karinayaa xoogaa bankeeg ah. waan jeclaan lahayn in nala kala reebo si aan u awoodno socod sahlan iyo baashaal oo waxa aan hadda qabsan karin aanu qabsanno. ilmahayga hadda ma idinla tahay inay diyaar tahay mise waxbaa u dhiman weli? hadda waa caadi. okay, hadda aan balkarinno bankeega. xaaladaynu way iska adag tahay waayo waan isku dheganahay. mataanahan laga yaabay inaysan wax walba awood u lahan karin samayntooda, balse hadda waxay xariif ku noqonayaan samaynta muuqaalada. hadda waxaan rabnaa inaan duubno muuqaal YouTube ah. waxaan rajaynaynaa inaad jeclaan doontaan. waxaan rabaa inaan baro sida loo dheelo TikTok iyo YouTube labadaba. waxaan doonaynaa inaan maalin uun aan caan ka noqono baraha bulshada si aan lacagtii qaliinka aan ku gali lahayn aan u samayno. waxaan ku faraxsannahay xaaladda aan hadda ku jirno. waxaan weliba isku dayaynaa inaan carruurta kale waxa ay sameeyaan aanu samayno, sida cunno karinta iyo dheesha. riyadeedu waxay tahay in maalin uun qaliin lagu sameeyo si loo kala reebo oo ay ku noolaadaan nolol sahlan. waan faraxsannahay waayo waxaan awoodi karnaa inaan ficiladeena ku samayno bulshadana daawanaysa, innaga oo samaynaynaa waxa ilmaha kale ay sameeyaan.